السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام الأمان انتو كحر يوتيوب جنال كي فرحي صومال اوفيشيال كلا جباري وقبديني فرحي عبد المودي ومسكينتي إلهي وحادي لا هدمانتي وسلامتي مالك استدد على ذيك الجوكتان دعوين كينا قروح ذو بدن واركي كومنتي ذي نقروح ذو بدن واركي وكما سنتهين إلهي ذي الشرف الرمان انت اريد wanaagsan soo qortay inta kalena waxaan leeyahay horta adeeryaalo xoogaa tartiibsada aniga culumada wax soo weydiyo culumadana jawaabaheeda waan helay soo go'aankeygana ana iska leh inta qoraalada qaldan soo qoraysaan leeyahay yani iyo canaanaysa aniga leeyahay adiga ba ilaahay inuu ku cafiyo waa rabtaaye umada cafi qasab ma jirto adeer fahmi ilaahay ba ma dhin aad ma idees adoon ani ila mid ma idii kartid xuriyadeeda ana iska leh soo xitaa qofka ani qalad iga galay na ilaahay adiga buu ka cafiya aniga cafi meedhihi karo xitaa soo qasaba wadatiin Soomaalida dadki dhahay camal waaye maxaa la dhahaa wariyaa cafi dadka hadii kal naara galaysa waa kuwa shakiga inta diinta iga galiyay soo culimadii ilaahay aan soo weydiiyay diinta islaamka ma aha dheedheeli wax ra'yi idinka idila weydiina ma aha yaa comment ku dhiiglayaal ma ahan fikir idinka idila weydiina yaa comment ku dhiiglayaal ma fahmaysin waa wax diiniyan ah aniga ma aqaan muslima ahay mana aqaan waxaan aqoonin ma faragasho karadeer ma aha wax baatigan nuucan sidee ku ahay aan ku soo dhahay diinta baaha yaa wax idinka fikir idisoo weydiina ma taa way dhamaatay soo ilaahayna ani dambiga aniga aan ka galo oo asiga aan ka galo aniga asiga sujuuda Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi aan leeyahay doontaada ahay waan u sujuudayaa ilaahay anigana cid noo dhaxayso cid noo dhaxayn kartana ma jirto taa waa taa laakiin aniga adoon aan qof bini aadan aan dambi weyn inta ka gala qalad weyn aan dhaawaca heerka ani la gaaray oo la dhaawacay aan gaarsiinayo Allahumma najin ilaahay baan ka mangalay ina qof walaal aan dhaawaco qof walaal in aan xanuunjiyo ilaahay ka mangalay taas ilaahay igama dhigo waayo nolosheeda meesha ka soo bilaabay ilaa ay heerka amaanta taaganahay ma taagnaan lahayn hadii aan aniga qof dhaawacay ama qof aan daba taaganahay ma fahmaysin mideeda kale arintii aan ka hadlay Nairobi markaas soo guuray hadalhayn badan afturka ciyaalkeeda ka soo tagtay nina guursarabo nina guursanoosa nina isku haleynaysa horta ina idiga daba geeyaan rabaa waa ogtihiin dadkeygii xaalad in badan ay igu xirantihiin nin adduunka u necbanay been midii sheega guur waxa la dhahaay heer waxaan soo gaaray been midii sheega oo wallahi oo billaah oo ilaahay iga sareeyo idaala canaay ima dhaarinaysi maxkamadan dhaartan ma fiicnaa ilaahay maxkamad ma saarnii in ninkii waa ku rabaa dhaha oo inta xanaaq ciil iqabto oo mararka qaar haduu i horjaagina ina ceejiyo iga qabanaysa hadii oo dhiig banaayahay mid manax gelisa ma toogata ee ninka iga qabanayso marka waa ku rabaa idaha saa u kiraasada aan u nacbanaanin fahmaysin waa taa idiga dhahay malmalan ka caawinin alxamdulillah xaaladaas marxalada ahayd haddana marxalad kale waayo fahmi nalka ay soo shidnacimo xaaladaas xaalada ahayd tan xaalad kale waayo alxamdulillah marka waxaa rabaa inaan idin sheego aniga guur waa isku dayay hadda dhawaanadan ah walibo laakiin wuu suurtagali waaye guurkaasna mid aan Nairobi ku imaaday moosan ahayn xiliga guurkaas aan aniga aan yani guurka la soo gaba maxaa dhihi jiray heshiiska oo dhacay ani ilmeyga baasaboorradooda way igu sameysnaayeen soo waxay ahayd go'aan aan qaatay inaan Nairobi aada horto ani waxaan ahay markaa gabadheeda aan dhalay curud ah shugri wixii ka dambeeyay aan hooyo noqday oo aabahay isoo koriyay iyo hooyadii isoo korisay iga geeriyootay oo hooyadii idashay iga maqnay markaas aabihii dhalayna intuu guriga imaaday asna ayaan hayay uga geeriyooday aabihii isoo koriyay iga geeriyooday oo ani kaligii aan noqday alxamdulillah hooyadii aniga idashay baa inoo Allah ii daayo mar waliba ducadeeda ila garab istaagsan hooyadeen ayadan ana meel baadiye ee degneed ka soo raray anaan soo degsaday gurigeygii
familkeygii waalidiinteedii oo aabbahe dhalay aabe isoo koriyay hooyadii isoo korisay markay iga geeriyoodeen anaa kaysta hooyadii yani dhashay gurigeygaana soo degsaday alxamdulilah soo waati aniga ilmaheyga inay ii sameeyaan aan rabaa waa waalidkaaga marka waxaa ku samaysid adiga ka samaysatid ilmahaaga way kuu sameynayaan alxamdulilah xilligaas ilaa hadda aniga ilaahay ka soko yani hooyaday inaan dhaha hooyo waxaana inaan sameeyo rabaa aan ku fikiri inaan dhaha laga yaabo laakiin qof maskaxdeeda maamulata ahay hooyadeena weligeed ilaahay ii deystee waxaan la imaaday maysan igala hor imaanin wax intuu dad u tagay gabadhaada waxaasay sameynaysa inta la dhahay ee qaadatna ma jirto mar waliba ana hooyaday garabkaygeed mar hooyada hadday garab kuu tahay wax kaa halaabaya malahan soo hooyada haddii laakiin dad hayraac hooyada saanay gabadhaada waxaas ka celiya hadii la inta kula imaado waxaan jooji ku dhahay ducaa habaar hadday ku dhaysid xanuun waay ma fahmay laakiin hooyadii alxamdulilah waxay ahayd hooyo oo waxaan hooyo saana sameerba hooyo hore u soco haddii in loo yimaado afaarihin loo sheegani hooyo waxay geher gaartay marka xaaladda adag aan ku jiro gabadhaadi way tuugsanaysaa social media ka ooynaysaa markii la dhahay idinka maxaa idigal idinka ma idin soo ooysay had tuugsata habree hadday ku imaado ii kaalmee ku dhahdo wixii haysid si ama albaabka ka xiray hooyadii ugu jawaabtay albaabka ka xiro ama waxaa haysid si ay ugu jawaabtay dad badan anaga familkeena hooyadii warkaas ula imaaday hooyada alxamdulilah markay heerkaas kalsooni kugu qabto tilaabada qaadaysa kugu kalsoontahay maasha allah alxamdulilah markaa joori kasoo tagayn hooyadii ducadeeda kusoo baxay joori markaa soo aaday hadda idiga shakay waa yaabaysin ani markaa joori soo aaday horta inta gurigeena waxaan ka dhistay baacweyno dukaanaan ugu talagalay dhuxulaa degsaday baawurkini dhuxush aa degsaday waa gadgatay 60 jawaana ii hartay bis 60kaas jawaan iyo $100 oo aan baawurka hoomey aan ku kireystay bis hoomey garaade waxaa laga bixiyay waa lagu raseeyay ma aragtay gadaal aniga ciyaalkeyga maalintaas soo baxay walaashay waxa ii qabatay xusuusta qol iyo barsad isku oo carafaada laga qabtay degmada carafaad hooyaday marka degmada xaafada carafaad ah walaashay marka ana hooyaday dhashay xaafad degneed ayada ii qabatay waxaan xasuustaa maalinta ku shilin kale lama haysto gaarigaas ii raran 60 jawaana ii saaran 60kaas jawaan oo dhuxul wax kale aan wato madax iyo macallin dharkeyga iyo ilmaheyga joodariyaasheeda iyo macunteeda bisle markaa imaanay habeenkii dabka waxa ku shubanayna caaw oo wax maxaa cuni doontaa ilmaha sii sarta xataa muku fikirin laakiin alxamdulilah walaashay soo horeyso waxay ii keentay raashin karsan oo habeenka cashada iidaa ilmaha soo karisay shaahiga iidaa soo karisay wax kasta iidaa noo keentay isla habeenkii alxamdulilah cidda aan u dagay naftooda laba jabaan iga gateen oo dhuxul ah lacagtoodana waa siiyeen subaxeedana quraacda jikadeeda waa shitay alxamdulilah fahmaysiin marka meeshaas ka soo bilaabo marka joorka soo tagay dadka waxay dhaayeen marka haaf turki ma ahayn markaas taqbal haaf turki da afka iga dabta farxiyaal ah markaas haaf turki magaca ma lahayn marka farxiyo meeshaas dadna igu xamanayeen dadna horteeda ka dhahayaan fahmaysiin dadna horteeda ka dhahayaan inay iga jibiyaan isku dayaan dadna way igu xamanayaan meeshaas yaa kaaga hore naag la biilaa ma tihid nin ma kugu biilaay naaga la biilayna xamar ma noolaan karto gurigaaga hadaa ka tagtid guri kala bixi waaye saan waaye so 2 bil aan ku tirineynaa 2 bil adoo joohar guriga dhex joogtaan ku arkeynaa 2 bil aan ku qabaneynaa so ya fiir ya sana leeyahay 2 bil aan ku qabaneynaa adoo inta taagan aan ku arkeynaa 2 bil 5 sano soo qaadatay aqwaan waa dhacay waa kufay waa dhacay waa istaagi waa kufay waa dhacay alxamdulilah fahmaysi maanta Nairobi markaas soo aaday dad badan hadda sidii joohar oo lagu dhihi jiray hadda idhooyo xamara 5 sano ku soo qaatay Nairobi mata alxamdulilah Nairobi waqtigu ilaahay igu talaya kalaan ku qaadan doona dad warkiisana miinii jibin doono hooyadaasaan ahay waxaad arki doontaan aniga luguheeyo ku istaagsan haddana inaan shaqaysto oo meel aan iska bixiyo oo luguheeyo ku istaago mar dhowna waad arki doontaan inaan suuq iska galaan raba waxaan ka bilaabi doonaa idinka indhiina macallin waa idin tusi doonaa waa ila socod doontiin ma fahmaysiin marka inaan shaqaysto oo ilmaheyga noloshooda maareeyo hadda awli aakhir le ani aan ahay oo adee 5 qof ani ku 6 nolosha ciyaalkii aniga aan maareynayo ani waxa la igu sugayo waa inaan dhaqaaq aan sameeyaa maadaama aan imaado wadan amni ah oo aniga alxamdulilah aan nagi ku ahay oo aan ku faraxsanahay inaan ku noolaado ilmaheyga wax igu bartaan anigana aan nolosha ciyaalkii ku maareeyo tii kale oo guurkani waan videogan kan xiga idigu sheegi doonaa soo hadday waxay aniga qaldan yihiin iyo haddii la iga qaldan yahay tii guurkani arrinta guurka idin sheegi rabaa barti ya maalahay
فيديو كان حيو إن شاء الله حد ليها وادي جعل دتك لا يقبري هرا لو سعنايا فرحي وي ماضي soo 2 bil u tiri ama 3 bil u tiriyo xamar dadkii isugooyo waa isugeeyeen heer joor ba 5 sano isugeen way waayeen waa bus aan soo dhahay waaba ka soo garbooda Nairobi aan imaaday baabala hadaan daane Nairobi jooga Nairobi xamarni ina xamar u noqdo meesugaya allo ana igaart ninki sugaayo idinka idii taala arka farxii waa tagtay way talaabsatay wayna tashatay wayna si talne mar walibna ilaaha garabkayga Allah macaa ilaaha ila jira mar waliba ogaada nolosha ninku ma xirno ogaada bartu ana idiga sameynaya muuqaalkii gurkayga oo sidoo waxay u dhaceen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.